waxa uu ahaa kulan muhiim ah oo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani uu la qaatay mas'uuliyiinta Puntland ku metela golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu ahaa kulan casho sharaf ah oo madaxweynuhu u sameeyay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda federaalka ku metela Puntland. waxa ujeedku ahaa xog waraysi kala warqaadasho madaxweynuhu hadal jeedin oo halkaas ka sameeyay. waxa uu la wadaagay xubnahan xaaladda guud ee Puntland shaqooyinka wanaagsan ee socda oo ay ugu horeyso hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo meel wanaagsan maraya, dib u habeynta ciidamada dowladda Puntland oo yana meel fiican maraya, iyo waliba horumarka laga sameeyay dib u habeynta maaliyadda iyo qorshayaasha kale ee dawliga ee horumarka ee socda oo ay kamid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa bulshada. intaasi kadib xubnuhu ayana waxay uga warbixiyeen xaaladda guud. waxa sidoo kale ujeedka kulanka qayb ka ahaa in madaxweynuhu la wadaagay guud ahaan xaaladda Soomaaliya si gaar ah marxaladda doorashada ee dalku uu marayo oo uu xubnaha la wadaagay iyo aragtida Puntland ee ah inay dalka ka qabsoonto doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda si uusan dalku u gelin khalkhal siyaasadeed. kulankani waxa uu qayb ka ahaa kulamada madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo waftigiisa ku sugan muqdisho ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan hay'adaha dawliga ah, mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. aad iyo aad u mahadsantiin.